بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وتورليبان دكتورka cudurada guud ee isbitaalka Juba kuna yaal iskuiska Juba maanta waxaan ka hadlaynaa insha Allah taala munaasabada World Hepatitis Day waa maalinta cagaarshowga adduunka oo la xuso sanad walba 28 bisha July xiliyadan oo kale waxa maalintan loo asteeyay inay noqoto maalin laga sheekeeyo xanuunka la yiraahdo ama xanuunada la isku yiraahdo guud ahaan hepatitis oo ah caabuq ku dhaca beerka oo ay sababaan inta badan fayrasyo iyadoo jiri karaan waxyaabo kale inay sababaan waxa maalintan loo asteeyay in laga saaro meesha dadku cabsida ay ka qabaan sheegista xanuunkan iyo inay hiigsadaan xarumaha caafimaadka si looga baaro looga talaalo looga daaweeyo waxay WHO hay'adda caafimaadka adduunka u asteeyay maalintan inay noqoto maalin dadka loo soo bandhigo xanuunkani waxa uu yahay iyo sida looga hortagi karo haddii aan guda galno mowduucan muhiimka ah oo maanta kale la xuso World Hepatitis Day waxay WHO ku qiyaasaysaa 300 oo milyan dad ka badan in ay xanuunsan yihiin xanuunada cagaarshowga la isku yiraahdo tirada badan WHO waxay ku qiyaasaysaa wax ka badan 300 oo milyan in ay xanuunsan yihiin xanuunka hepatitis oo xanuunada waliba si qaas ah hepatitis B iyo C ga oo noqdo kuwa mataqaanaa raaga oo beerka si daran u saameeya xanuunada hepatitis-ka haba kale way keeni karaan cagaarshowga oo mararka qaar qofku Soomaalidu waxay u taqaan cagaarshowga inay cagaar noqdaan kaadu isbedesho oo hadii daawooyinka qaar dadka qaar u isticmaalaan si saa'id ah cagaarshowga ku keeni kartaa daawooyinka daawadheeraadka ay ku keeni kartaa laakiin waxa arrinna maanta ka hadalna waxa weeye kuwa ay sababaan ama cagaarshowga nooca ay sababaan fayraska sida magaca ka muuqata cagaarshow waa caabuq ku dhaca unugyada beerka kuwaasi oo laga yaabo inay shaqadii beerka hoos u dhigaan ama meesha ay ka saaraan waxa jiro magacyo la siiyo cagaarshowyada kuwaasi oo ka bilowda A ilaa E A B iyo C iyo D iyo E sida caadiga eega wuxuu u badan yahay carruurta wuxuu ku keenaa qandho matag iyo labo inta badanna waxaa la sheegaa in haddii uu muddo kooban hayo cunugaas ama cunuga haddii aan xataa ifan laga daaweyn inuu meesha ka baxo sidoo kale E wuxuu u badan yahay dumarka qaasadka ku uureyda wuxuuna khatar geli karaa hooyada uurka leh iyo ilmaheeda laakiin kuwa mataqan ugu khatarsan ee raaga waa B iyo C labadaas virus oo la kala yiraahdo hepatitis B iyo hepatitis C waxa weeye mataqaanaa kuwa dadka inta badan mataqaanaa la dhiban yihiin aad u saameeyay waa iyaga waana kuwa raaga ee beerka ku raaga unugyada beerkana mataqaanaa shaqadooda yareeya virusyadan inta badan waxay ku gudbaan labadan nooc waliba si qaas ah waxyaabaha mataqaanaa jirka dheecaanada jirka qofka yimaada sida dhiigga sida haddii noqoto in dadku galmo ay sameeyaan dheecaanada galmada sidoo kale mataqaanaa saliifaha iyo dheecaanada afka mataqaanaa qofka ka yimaada cagaarshowga iyo inta badan cagaarshowga asigana wuxuu ku gudbaa waxyaabaha mataqaanaa fadarada sida biyaha wasaqaysan haddii dadku u safraan oo kale mataqaanaa meel ay joogi jireen oo kale oo ay la kulmaan biyo wasaqaysan oo kale iyo orofecalna waa la yiraahdaa waxyaabaha mataqaanaa cuntada iyo la xiriira haddii aan soo laabano B iyo C oo ah kuwa khatarta badan beerkana saameeya inta badanna transmissionkoodu uu yahay qaabka aan soo sheegnay oo ah dheecaanada jirka oo soo saara hadii noqoto dhiigga hadii noqoto mataqaanaa dheecaanada xubnaha taranka oo inta badan dib waxa lagu kala qaadi karaa galmada lagu kala qaadi karaa dhiigga haddii aan mataqaanaa qofka laga baarin oo aan la hubin oo qof kale dhiigga lagu shubay aan laga xaqiijin oo kale iyadoo qudhiidu mataqaanaa uu qaadi karaa sidoo kale waxyaabaa la isla isticmaalo oo qofka uu taraan jarrada oo kale ama ashyaada qofka laga yaabo inay inta jeexaan kadibna qofkii mataqaanaa uu dib u isticmaalo iyaguna mataqaanaa waa laga qaadi karaa intaa kadib waxaan guda galaynaa siyaabaha mataqaanaa looga hortagi karo inta badan waxaa la doonayaa in mataqaanaa cagaarshowga haddii suurtagal noqoto qofku iska tallaalo oo hepatitis B ga inta badan tallaal uu leeyahay oo waa la iska tallaalay wax daaweyn meelaas inta badan sida la sheego inkastoo daawooyinka qaar hepatitis B ga loo qaato ay jiraan kuwaasoo fayraloodka ama lambarka fayraska lagu yareeyo si saameynta beerka u geysan kara u yaraato ama hepatitis C ga asiga waa la daaweeyaa oo daaweyn ilaa 3 bil soconaya ayaa qofka la siiyaa jirkiisana insha Allah taala in laga waayo ay u badan tahay laakiin wax talaale ma la soo meesha ay ku dambeeyaan hepatitis B iyo C waxa weeye in qofka mataqaanaa beerkiisa shaqadiisa ay yareeyaan kadibna laga yaabo in beerka ay ka dhigaan hawlgab ama ay kansar uu ku dambeeyo wax la yiraahdo HCC ama hepatocellular carcinoma waxaa jira Soomaalidu inta badan ay isweydiiyaan oo ah malabka hadaan isticmaalo kale muxuu cagaarshowga ka tarayaa waxaa jira daraasad la sameeyay oo dhanka mataqaanaa cagaarshowga nooca C la xiriira oo la sheegay haddii qofku malab u qaato in wax badan mataqaanaa ka tarayaan laakiin B-ga ilaa hadda mataqaanaa lama hayo sidoo kale waxaa jira su'aalo kale la isweydiiyo ah ma isticmaali karaa dufan oo cagaarshow qaba inta badan beerku waa xubinta ugu weyn qanjirka ugu weyn jirkeena ka shaqeeya
haddii mataqaanaa culays la saaro oo dufanku inta badan dee beerka dhib uu ku yahay waxay noqonaysaa dee qofkuna cagaasho hor u qabay in culays badan oo saa'ida beerka uu fuulo taasina ay keento in qofkii mataqaanaa shaqo badan oo aan mataqaanaa uu beerka ka bixi karin uu saaro marka waxaa la doonayaa qofku inta badan hadduu cagaasho uu qabo waxyaabaha dufanka leh uu ka fogaado ayaa muhiim ah waxaa kaloo muhiim ah iyadana oo in la bidhaamay u baahan dadka isguursanaya ka hor inta isguursan waa inay sameeyaan wax la yidhaahdo pre-marriage check up oo ay iska baaraan cagaarshooyada oo nooca B iyo C si uga badbaadaan in mataqaanaa xanuunkaasi uu si ogaansho la'aana uu qof ka mid ah u qabo oo u saameeyo hooyooyinka cagaarshowga qaba si looga fogaado ilmaha ay u gudbiyaan waxaa la doonayaa hooyada markay dhasho 24 saac ugu horeydo in la siiyo human immunoglobulin oo si ka hortag ugu noqdo cunugii sidaasna mataqaanaa talaal ugu noqdo oo hooyadii in mataqaanaa cunugii uu ka qaado xanuunkii ama cagaarshowgii ay mataqaanaa u yaraato calaamadaha cagaarshowga qofku isku arki karo inta badan nooca A iyo kale qofku ilmuhu qandho yeelan kara inta badan ilmuhu ku dhacaa dadka weyn uu ku dhici karaa qandho iyo lalabo iyo matag iyo waxaas oo yeelan karaa ama B-ga iyo waxaa laga yaabaa incubation periodka maadaama uu fog yahay in mataqaanaa qofku keliya isku arka lalabo iyo muuqa xanuun iyo daal badan wax kaloo calaamada oo gooniya oo hadda kuwa kale ay gooni leeyihiin ma jirto waxaa la doonayaa in qofku isla socdo oo mataqaanaa iska cabiro waxa la feral loadka hadduu cagaasho uu qabo waaye hadduusan qabin inuu iska talaala insha Allah tacaala halku dhiga WHO ee sanadkan waa let's break it down oo ah in meesha laga saaro teedka iyo mataqaanaa barrierka u dhaxeeya bahda caafimaadka iyo dadka la xanuunsan ama raba inay iska baaraan iska jeeg afgarayaan cagaarshowga sida awgeed waxaa la doonayaa in meesha laga saaro arrimaha la xiriira dhaqaale ahaan iyo istigmada iyo xishoodka iyo cabsida qaar dadka qaar ay qabaan oo ah in mataqaanaa aysan imaan karin xarun caafimaad aysan sheegi karin xanuunkii waxaa la doonayaa inay yimaadaan goobaha caafimaadka iska jeegarayaan iskana baaraan iskana tallaalaan insha allahu tacaala si 2030 hiigsiga ah in cagaasho adduunka laga waayo ay u rumowdo insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeena maanta oo ahay wacyigelinta cagaarshowga